أدعيه إن أنا هقف إسلامه وإلهي النبي عيسى محمد بجعل اللهم صل وسلم عليه أشهد أن لا إله إلا هو أشهد أن محمدا عبده ورسوله kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan ee ku taxan channelkeena xog bixinta warka haddii aad ka cusubtay saaxiib ay tahay markii koowaad ee soo boqotay channelka xog bixinta warka subscribe saar like na saar muuqaalkan si uu sii gaaro dad badan oo ka mid ah asxaabteena waad ku mahadsantahay markasta la jaanqaadkaaga saaxiib haddaba daawadeen maanta waxaan ka arrimi doonaa waa muuqaalkii labaad aan ka diyaarinayno fanaanka canka Qamar Suugaani haddaba Qamar Suugaani iyo arrinkiisa oo cirkas ku shareeray 24 saac la soo dhaafay baraha bulshada saameyn weyn ku yeeshay sidoo kale Qamar Suugaani xaalkiisa xaggu maraya heesiisan cirka gaadhay ee runtii hawada aan la qaban karin ma soo karaa fanaanka sanadkan labadii sano ee ugu dambeeyay 20 iyo 21ka iyo 2019 saddex sano ugu dambeeyay fanaanka Qamar Suugaani ayaa runtii noqday fanaaniinta ugu shidan sidoo kale heesuhu soo saaraya ayaa ruuxantii moodaa mid laxanka iyo sidoo kale muusiga loo saarayo heesiisa aad moodaa in ugu soo faryareysanayo haddaba fanaanka Qamar Suugaani yaa wax badan ba hadal ugu daalin saaxiib yaal Qamar Suugaani oo afka soo furtay oo sheegay in dadkii ka sheegay in uu Qamar Suugaani diinta ka baxay subxaanahu wa ta'ala in ilaahay ay istaghfirullah dhahan oo ilaahay toobad celiyaan haddaba Qamar Suugaani oo bartii YouTube iyo bartii Instagram ku baahiyay muuqaal yar ama kaliya yar oo iska soo duubay isagoo sheegaya inuu Qamar Suugaani yahay qof muslimo oo diinta islaamka kuna barbaaray kuna dhaqma haddaba Qamar Suugaani ma la soo karaa arrimaha laga faafinaya 24 saac la soo dhaafay waxay noqdeen been abuur aad u weyn haddaba saaxiibayaal muuqaal yar oo iska soo duubay ayaan halkan igu hayaa bal daawo waa kan isagoo dhameystiran oo ka waramaya أدعيه إن أنا هقف إسلامه وإلهي النبي عيسى محمد بجعل اللهم صل وسلم عليه أشهد أن لا إله إلا هو أشهد أن محمدا عبده ورسوله waxaan rabaa sidoo kale inaan ka jawaabo heesta iyo sawirka haddaba Qamar Suugaani qof kasta uu garanaya oo social media inta ku dhex jira qamarna ciis ku sheegmayso ruuxantii fankiisa wuxuu ka soo bilaabay magaalada Hargeysa haddaba heestan muranka badan dhalisay ee cidka eliminator uu ku jiro ayaa ah heestii Maryan Axmed u soo qaaday ee ku jirtay Maryan Axmed Huunno haddaba heestan oo saameyn weyn baraha bulshada ku yeelatay ayaa Qamar ka sheekeeyay arrimaha ku dhacday isagoo sheegay in sidoo kale uu codka isagu duubtay aan cid kale duuban codka yar uu ku jira ee lagu sheegaya in ay ku jiraan eliminator markan ruuxantii uu ka sheegay isagu wuxuu dhahay anu mabaan ogeyn oo runtii ereyganna mabaan u lahayn aqoon sidoo kale sawir uu ku galay magaalada Hargeysa oo runtii sheegay in halka dhinaca ay kaga dhigsantay wax moodin taasoo looga jeedo yani dadka wax baraha bulshada ku faafinay uga jeedaan sawirka isha shaydaanka haddaba ma la soo karaa arrinka Qamar Suugaani laga faafinayo waa been runtii annaka oo team xog bixinta warka isku duuban waxaan leen arrinka walaalkin Qamar Suugaani laga sheegaya waa been oo waxba kama jiraan weey sidoo kale codkan hadii uu ka murmay oo maadaama laga yaabo qofkan heesta wulid gareynay hadii yihiin team Y3 production in uu muusigani ka dhex raacay oo aan iyagu fahamsaninba haddaba qof kasta Soomaaliya waxaan uga digaynaa in codadka noocaas oo kale in heesiisa ku soo diro qof kasta fanaan noqon doona ama imaka fanaana haddaba dhammaan halkaasaan ku soo eegnaa dhammaan xog bixintii warka aan iga diyaarinay haddii halkan channelka waa xog bixinta warka hadaad ku cusubtay saaxiib waxaan ka codsanaa inaad muuqaalkaaga sii share garayso la wadaagto asxaabtaada kugu dhow ee baraha bulshada aad ka wada saaxiibteen sidoo kale muuqaalka ha ka hilmaamin like saar maadaama aan juhdi badan ku bixinay si aan xogta dhabtan igu soo gudbin doono